magaalada Sheekh waxay ka mid tahay degmooyinka ugu weyn guud ahaanba gobolkan Saaxil. haddaba bulshada ku dhaqan ayaa si weyn u soo dhaweeyay isla markaana ka mahad celiyay shirkadda leerka ee Badar muddadii ay ku sugnayd amaba ay ka howlgalaysay gudaha magaalada. sidoo kale waxay telefishinka caalamiga Kalsan uga warrameen intii aanay shirkaddu iman in aanay heli jirin leer ku filan, balse haatan ay ka qabtatay shirkaddu leerka oo ay helaan 24 saacadood leer ku filan. waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. shirkadda Badar waxa weeyaan adeeg tayo leh ayay keentay intii ay joogtay degmada. sidoo kale shirkadda Badar waxa ay noo samaysay adeeg iyo qiimo dhimis iyo sidoo kale markaasi inta la doono in markaasi qofka customer-ka ah lagu yeesho lacagtii tusaale ahaan 3 bilood inay ku gaadho. sidoo kalena markaasi laga dhimo unit-ka intii hore uu ahaan jiray berigii hore, iyo sidoo kale inay markaasi gaadhsiiso adeegii leerka meelo badan oo aan markaasi hore degmada uga gaadhin. waxaan halkan ka cadaynayaa shirkadda Badar magaalada Sheekh inay anagoo madow noo timi oo mugdi ah oo carruurtaydu ka sasto madowga maanta aan ku raynay alxamdulillah rabbil caalamiin. iminkana soo laray noo soo wada aad baan ugu raynay shirkadda. haddaanu ka warbixino shirkadda Badar aanu nahay degmada reer Sheekh runtii waxa weeye maalin dhood waxaa cabasho ayaa ka dhacday dumar iyo carruur, laakiin xaqiiqada marka loo noqdo waxa weeye shirkadda Badar leerkii markii hore noo bixi jiray saacadaha yar iminka 24 saacadood buu leerku noo baxaa. عجبت عجائبا وأنا من كبار القوم وعلم أنا دتك متعلمين اللي قلت مير هرشي خبر كمده دتك الدعاء مرة يا التضوات كي عجينين وكتير أصل هرشي خبرنا وعلم أنا يا شيخ نلقى نكره هروي صارت they never got it. waxay ahaayeen cadoon 12 habeenimo laga baqtiyo maxaabiis baan dankasta uu qofku leeyahay ka wax dhiganaya ka cibaadeysanaya feenus bushinji because 12 off ahaa leeshoodu maanta 24 hour bay haystaan. wallahi Badar waxay ku bedelanayeen maamulkeeda aanu midna garan maayo. waxa u dana inay ilaashadaan dantoodu saasay ku jirtaan kula talinaya wali maxaan ka hadalaa halkan joogana waa Sheekh oo leeyahay Maxamed Yuusuf Diiriyo reer Sheekha. waan ka warramaynaa shirkadda leeyahay Badar shirkadda aad been magaalada noogu shiday leeyahay noogu si fiican leerkii habeenii maalin bay nooga dhigtay. awal lambar waxaan loo shidi jiray habeenkii mar loo shidi jiray waliba saacada naga dhinaa. sidaa weeye shirkaddaas shaqaale fiican iyo leer fiican iyo raalgelin baan ku helnay badan. ilaahay baa mahadlay iyagana u mahadnaqaynaa. waxaa see yar jira waxoogay sicirkaan ugu qaali ah sicirka leerkaan ugu yar qaali waxaan codsanaynaa in laga dhimo leerka sicirka. haddii aanu ka hadalno shirkadda leerka ee la yidhaaho Badar dee shirkaddu wax dhibaataana kuma qabno si wanaagsanna leerka magaalada way ku shiday. qof isagu dan leh oo ama iska bixin waayay lacagtii ama la yidhaaho war saacaddaa kaa xune bal saacadda bedel qayladiisa uu qayliyo waxba ha u dhegtaagina. haddaanu nahay xaafadaha shacabka ee Sheekh waxaanu helay leer quality leh waanaanu ku raynay madowgiina waanu kaga raysannay. waxaanu leenahay dadweynaha wixii wax faa'iideynaya in loo hambaliyeeyo la yiraahdo hambali ayaa fiican. in la isxagxagto iyo la isxumeeyo iyo waxaan ahayn la sheego mid meesha taala ma anagu waanu ku raynay shirkadda Badar madow baanu qabnay leer baanu helay joogtaa 24 saacadooda. arrintan aad iga weydiiseen shirkadda Badar leerka magaalada aad iyo aad wax ugu qabatay marka runta la doonayo aad iyo aad leerko naga baqtii jiray 12 habeenimo 24 hours bay nagu dhigeen. cabdirashiid mubaarak cabdi cabdirashiid suul telefishinka caalamiga Kalsan degmada Sheekh.